inaan koobo ma sahlana lianna waxaan rabaa aniguna taariikh dadka baro dowladdii soomaaliyeed ee burburtay jabhadihii burburiyeen markii lagu kala tegay ee soomaaliya dagaalo sokeeye gashay ee la kala qaxay ee la kala firdhiday shir ayaa jabuuti lagu qabtay shirkii jabuuti la isugu yimid oo xasan guuleed abtidoon la u naxariistee oo cali mahdi lagu dooran doono soomaaliyu waxay tiri annagu ma doonayno muqdisho caasimada waana la ku dilay waana la ku dhacay hantidan ayaa lagu burburiyey waa ku kala tagnay ma doonayno dadaal dheer ayaa loo galay in lagu qanciyo war caasimaddu waa dastuuray ku timid iyo afti dadweyne kuma imaanin rabitaan qof iyo kooxe in caasimadii soomaaliyeed aan lala dirinin muqdisho ma dagaalamin dhul ma dagaalamin dadaa dagaalamay caasimadii in la dhowro soomaalida waa aqbashay soomaalida markay aqbashay haddana waxaa ku xigay shirki kale ee cabdulqaasim salaad xasan madaxweynaha oo ahay sidii oo kale loogu ballamay intaas maqaam ha loo sameeyaa la dhahay maqaamka ha la sameeyo waray noqotay buu ku qoran ilaa dowladdii aan anigu ra-iisul wasaaraha ka ahay la dhisay ee haddana lagu qoray axda qarameedkii inay maqaam loo baahan yahay maqaamkii in loo baahan yahay shaki kuma jiro maqaamkii waxaan aaminsanahay 2007 bilowgeedii inaan u helay miisaanid in la sameeyo in shir maalin cadantaan qabanay wasaaradda warfaafinta ka dhacay oo wasiiro badan joogeen iyo civil society dad la yiraahdo oon ka xasuusta abukaato cumar dhegey la yiri waxaan sameynaynaa charterkii in la daraafgareeyaan ogahay charterkii markii la daraafgareeyay iyadoo aan hindisaheeda wado in deegaanada gobolka banaadir laga doorto councilo oo doorasho lagu keeno guddoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada ayaan shaqada ka tegay shaqadii waxaa meesha ka amba qaaday ra-iisul wasaare nuur cadde iyo madaxweyne cabdullaahi yuusuf waana hirgashay oo waatan golo deegaan oo ka kooban 69 xubnood oo doortay ee guddoomiyihii gobolka iyo duqa magaalada lagu tartamay ee uu ku guuleystay maxamed cusmaan cali nin la yihahdo dhagaxtuur oo hadda agaasimo guuda council la doortay iyo guddoomiye la doortaan meesha ku ogeynay waxaa timid dowladdii madaxweyne sheekh shariif waa kala diriyey gadaala loo noqo waxaa ka dambeysay dowladdii madaxweyne xasan sheekh oo la rabay inuu dhammaystiro ama uu sameeyo maqaamkan tallaab looma qaadine waa laga tegey hadda waxaan maqlayaa oo doodaha ka socda ee magaaladan iyo soomaaliya gudaheeda ka mid a inay iyagii leeyihiin maqaamka maxaa loo samey la'ya oo iyagu maxay u sameyn waayeen madaxweyne sheekh shariif golada la doortay oo guddoomiye gobolo la doortay ayuu u yimiday isagaa baaba-ashoo kala diray maantana wuxuu leeyahay maqaamkii ala rabaa madaxweyne xasan sheekh 4 sano madaxweyne ahay tallaab uma qaadin dowlad goboleedyada markuu dhisayna waajib ayay ku aheeday inuu maqaamka muqdisho meel saaro xuquuqda dadka deegaanka iyo xuquuqda ummadda ee caasimadda u taaba inuu meel saaro oo muqdisho yeelato matalaad iyo madax ay dooratay ummaddu oo u shaqaysa una adeegta hadda xaaladda waa arkayaa madaxweyne farmaajo maamulkiisa waxaan arkayaa xildhibaano iyo abaabul beelo oo muqdisho ka socda la leeyahay maqaamkiyaa dowladdu diidan tahay maqaamka horta yaa sameynaya ma waxaa sameynaya shacbiga mise baarlamaanka yaa sameynaya horta maqaamka waxaa sameynaya oo looga fadhiya oo dastuurku sheegaya baarlamaanka labadiisa aqal iyagaa laga rabaa shacbigu waxay rabaa inay weydiistaan ay xaq u leeyihin laakiin waajibku wuxuu saaran yahay baarlamaanka labadiisa aqal inay saxiyaan weli ma arag xildhibaano inta mooshin geeyo baarlamaanka labadiisa aqal mid kamid a dhahaya maqaamkii muqdishoa loo baahan yahay ee miiska garaacaya marka haddii shaqadoodii inay gabeen aniga ay ila tahay ma inay shacbiga kiciyaan oo dadka isku diraan oo dowladda suga shacbiga madaxa ayay u socdaan waxaan soo jeedinayaa soomaaliyey baarlamaanku ha ansixiyo ha ka doodo maqaamka magaalada muqdisho dowladda madaxweyne farmaajo ma marka uu xukunka ka dego osan dhihi doonaa maqaamkii hala sameeyo intuu madaxweynaha yahaa laga rabaa in maqaamkii muqdisho la helo inay ummaddaani matalaad yeelato in 3 ilaa 4 milyan oo shacbiyahu ayna matalaad lahayn inayna adeegyo bulsho iyo ummaday doorato ay la xisaabtami karta aanay lahayn marka waxaan qabaa anigu jaalle xildhibaano saaxiibaday shaqadoodii waa qaban waayeen iyo shacbiga iyo dowladda isku dirine waxaa la iska rabaa in loo wada guntado oo madaxweyne farmaajo iyo dowladdiisa
iyo baarlamanka iyo soomaalida isku duubano inay la yimaadaan maqaamkii muqdisho si ummaddan u hesho adeegyo bulsho iyo ummaday doorato ay la xisaabtanto hadday xilka si fiican ugu fuli waayaan ay ka qaado. marka waxaad leedahay maqaamka aniga raalli ayaan ka ahay laakiin nidaam sharci ha loo maro. anigu waxba kuu sheegay oo waxaan ku yidhi hindisaha maqaamka in la sameeyo charterkiisii ama dastuurkiisii weli computerkayga ku jira, aqoon-yahanadii sameeyena waa joogaan, magaaladay joogaan. waa kuu sheegay waxaa kamid ah abukaata cumar regi waa la hayaa. marka haddiiba hindisihii jiro, dowladda laga rabaa inay la timaado go-aan inay qaadato ee sharciga ay mariso ee labada aqal ee baarlamaanka ansixiyaan ummaddaanu si u hesho matalaad iyo xuquuqda ay ku leeyihiin dalkooda iyo dadkooda. marka anigu ma qabo buuq lagu sameeyo, waxaan qabaa in jid sharciya la marsiiyo. shalay anaa diidanay anoo madaxweynea, shalay anaa diidanay anoo wasiir ahay, shalay anaa diidanay anoo xildhibaan ahay, maantana waxaan leeyahay hala sameeyo. waxaasu caqli maahayna waxaan qabaa soomaalida inti isku noqoto oo xisaabtanto madaxda qaranka ee maanta jirtana iyo iyaguna kuwan hadda sheegayo kale biri noqon markay xilka ka tagaan ay dhihin hala sameeye ha lagu dhaqaaqan qabaa. dadka hadda ka shaqeynaya samaynta maqaamka waxay isugu jiraan xildhibaano deegaanka ka soo jeeda iyo kuwo kale oo aragti ahaan aaminsan in gobolkan maqaam loo sameeyo. ma la xiriirtay oo aragti iyo fikir iyo ma la wadaagtay si wax qurux badan loo helo? anigu mar kasta waa ku taliyaa waxa wanaagsan ee ummadda wadan ah. maqaamka muqdishona dhowr jeer ayaan cabiray. maqaamka muqdisho buuq iyo qaylo iyo fiiri hay-aduhu shaqada waa kala leeyihin. maxaa shaqa isugu daray xildhibaano iyo qaybo bulsho iyo madax dhaqameedyo iyo maxaa isugu daray shaqada? waxaan arkaya anigu hadda maalin dhaweed markii shirka u dambeeyay anoo jooga South Africa, waxaan arkaya xildhibaano dhahaya shacbigo waxaad rabtaanaan samaynaynaa oo waxay rabaan waa horeba loo wakiishay awa shaqada maxay qabo way. xildhibaanada dhahaya hadda waxaad noo dirtaanaan qabanaynaa waa aragtana filaya horaba loogu igmaday awa shaqadoodii. marka waxa weeye anigu waxaan qabaa wuxuu nidaamay rabaane hiddi hoobe iyo iska dabayac ma rabto. wuxuu nidaamay u baahan yihin. waxaa la rabaa anigu waxaan ogahay in gobolka banaadir uu gacanta ku hayay, in wasaaradda arrimaha gudaha uu la wadaagayay, in golaha wasiirada la geeyo, baarlamanka loo gudbiyo maqaamka. broseskaasay rabtaa. waxaa jirta aragti aada usoo xoogeysanaysa oo ah gobolka banaadir markii laga soo gudbo caasimadda magaalada muqdisho ah, gobolka banaadir dad gaara inay leeyihiin. fikraas ma qabtaa? soomaalidu saddex waay. qof deegaankan asalkiiba loogu yimid oo u dhashay, qof yimid ee xuquuq ku yeeshay, iyo qof ku dhashay oo xuquuq ku yeeshay. saddexdaas kategoriyaa dalka kan jirta. waagay deegaan ahayd qabiil, gobonimada intaan la qaadan ayay ahadaa qabiil ka talinaya. markii dowlad la noqday deegaanka dadkii loogu yimid xuquuqay leeyihiin gaara. adduunkayna ka jirta. caasimadaha adduunku dhulka ay qabtaan dadka loogu yimid xuquuq siyaasadeed oo gaar ah la siiyaa. xuquuqda bulshada, xuquuqda dhaqaalaha, xuquuqda amniga waa lala wadaaga. xuquuqda siyaasadeed macnaha waxa weye iyagaa xukumaya, iyagaa hogaaminaya. laakiin meeshaanu caasimad wey. caasimadda maxay noqotay? dad deegaanahoo loo yimid iyo muwaadiniin ay caasimad u tahay oo hanti ku leh oo canshuur laga qaado. marka haddaad adigu leedahay 4 daarood ku leedahay muqdisho oo aad timid 1964 ama 65 aad timid, laakiin 4 daarood oo canshuur laga qaado aad leedahay, miyaada muwaadin ahayn? canshuurtaas adduunka taxpayer canshuur bixiyaha lagu xisaabtama. macno bixi mayso aniga inaan ku dhasho muxuu ahay banaadir meelaan anigu xamaran ku dhashay, inaan meel kale ku dhasho ee aanan magaaladan ku lahayn cariish yar ee aan idhaahdo anaa iskale, wax shaqayn kara ma. waxaa la rabaa dadka deegaankanu xaqay leeyihiin, dadkay caasimadda u tahayna xuquuqay leeyihiin. marka waa la isku dari karaan qabaa, waa loo qeybi karaa xuquuqda. ma aaminsana in la yidhaahdo maanta reer hebelaan nahay muxuu ahay oo deegaanka annagaa qaadanayna. lianna waa maqlaya dooda meeshaad ka keentay iyo doodaha socday kamid tahay. annagaa si gaara u samaysanayna dad dhahayo xildhibaanahan arkay. si gaara wax loo sameeyey maa soomaaliya anfacayo oo caasimad anfacayo. si gaara macnaheeda waa kasi sooma annagaa samaysanayna xildhibaano sameyn waayaa looga fadhiyaa.
haddii la sameyn waayo dowladdaha ku weynaysa waajibaadkeeda iyo xilkeeda. magaaladan waxay rabtaa xuquuqdeeda inay hesho 4 milyan oo Soomaaliyu dad lama mathali karo xuquuqna ma leen dhihi kara ma jiro. waa tahay shacbigu awood u leeyahay ma haddii sidan ay ku sii socotana waxaa imaan karta in reaction uu yimaado falcelis shacbiin uu yimaado. marka haddii dowladdu sameyn weyso tan ku xigtaa sameynaysa laakiin fawda la sameynaya markaas magaalada lagu kala tagaya caqli ma han qabaan.